dalkan Mareykanka Donald J. Trump ayaa xalay khudbad dheer wuxuu u jeediyay dadyoga reer Mareykan ee halkan ku dhaqan. Waxa khudbadiisa inta badan oo laga daawanayay TV-yada Mareykanka kana socotay dhinaca kale asagoo si toos ah uga jiray aqalka cad ee dalka Mareykanka uu kaga hadlay in uu kobac weyn oo dhaqaalaha ah uu sameeyay. qiimaha guryaha uu hoos u dhigay cashuuraha waxa uu difaacay isla markaasina wax wanaagsan uu ku sheegay dhaqaalo ee lagu soo rogay dalalka ka baxsan Mareykanka ee alaabaha keeni jiray gudaha wadankan Mareykanka. waxa uu sidoo kale ka hadlay dadyoga soo galootiga ah iyo Soomaalida dabcan gobolka Minnesota. balse Trump ayaa isla markiiba khudbadiisa intii uu waday waxa uu ku booday inuu ka hadlo madaxweynihii asaga ka horeeyay Joe Biden kaas oo uu ku eedeeyay asaga maamulkiisa iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka ku jira ee xisbiga dimuqraadiga in ay ka dambeeyeen sida uu yiri in wadankan Mareykanka albaabada u furaan oo muhaajiriin soo galootiyo aad u tiro badan ay dalkan soo galaan kuwaas oo qaatay dhaqaalihii wax badan aan ku soo kordhinin ayuu yiri gudaha dalkan Mareykanka marka ay noqoto. We are making America great again. Very simple. We are making America great again. Tonight, after 11 months, our border is secure. Inflation is stopped. Wages are up. Prices are down. Our nation is strong. America is respected. And our country is back stronger than ever before. We're poor. الريان قرآن أونلاين هويجي حفظنت قرآن كريم كأونلاين كأ دل يدبد أديجو جورجا جتشوجا وبتك هذا نفط هذا كبر قرآن كريم كأ وحامعت كنو معلمين تخصص له ku diyaariyihiin barbaarinta ubadka barista quraanka tafsiirka kitaabada muhiimka ah iyo af Soomaaliga iyo akhriska hadaba Rayaan Quraan Online oo arday cusub qaadanaya yaan laga buuxin liiskan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. waxa uu yiri aragtideeda waxa ugu daran ee maamulkii madaxweyne Joe Biden uu sameeyay ayaa ahayd inuu albaabada u furay malaayiin soo galooti ah inay yimaadaan gudaha dalka Mareykanka. waxa uu sheegay Trump in dadyoga soo galootiga ee u dhalaneen wadankan Mareykanka ay wadankan yimaadeen oo ay harqiyeen ayuu yiri goobaha caafimaadka xarumaha degdega ah ee isbitaalada halkaasi oo ay daadsan yihiin ayuu yiri oo ay ka faa'iideysanayaan in ay qaataan daryeel caafimaad oo lacagtiisa aysan bixinin. waxa uu soo qaatay oo ka hadlay in ilmahooda ay helayaan waxbarasho lacag la'aan ah ayagoo aanan dalka wax ay ku soo kordhinayaan dadkaasi ay si jirin haba yaraatee. sida caadada u ahaydba madaxweyne Donald Trump waxa uu soo qaatay oo khudbadiisa uu kaga hadlay oo uusan marnaba ka hilmaamin Soomaalida Mareykanka gaar ahaan kuwa reer Minnesota oo uu sheegay inay xadeen plaayin iyo plaayin lacagtii loogu talagalay dadka Mareykanka ah ee cashuur bixiyaasha kuwaas oo uu sheegay lacagta ay qaateen awgeed in uu soo afjari doono dhawaan. si rasmi ah umuusa sheegin waxa uu la jeedo eragaasi soo afjarista bal aynu wada dhageysano sida madaxweyne Donald Trump uu u soo qaatay ee uu uga hadlay Soomaalida Mareykanka. Look at Minnesota, where Somalians have taken over the economics of the state and have stolen billions and billions of dollars from Minnesota and indeed from the United States of America. And we're going to put an end to it for so long as before my election. bal u fiirso Minnesota oo Soomaalidu xadeen dhaqaalihii gobolkaasi Minnesota oo ah bilaayin iyo bilaayin dollar oo runtii laga xaday Mareykanka. waxaan soo afjari doonaa inta aanan lay dooranin ka hor sidaas ayuu yiri Donald Trump. haddaba doorashada uu ka dhawaajiyay ma uusan carabaabin in markii saddexaad uu u cararayo xilka balse waxaa jirta horay madaxweyne Donald Trump marar badan oo uu hadlay oo afkiisa uu soo xaday in uu doonayo in markii saddexaad loo doorto madaxtinimada dalkan Mareykanka isla markaasina Mareykanku uu ku soo celin doono inuu noqdo wadan aad u wanaagsan aragtidiisa falsafadiisa ku qotanta Make America Great Again. haddaba sharciga dalkan Mareykanka ee dastuurka ah ayaa wuxuu u ogolaanayaa madaxweyne kastaba in muddo 2 jeer ah uu noqdo madaxweynaha wadanka Mareykanka mar saddexaadna inta badan aysan dhicin. madaxweyne Donald Trump waxa maamulkiisa uu marnaba si aan gabasho lahayn uu u soo hadal qaaday in dadka muhaajiriinta ah ee dalkan Mareykanka ay jooga
ay waqtigan dhibaato iyo culays ku yihiin. waxa uu sheegay 50 sano markii ugu horeysay in dadyooga soo galootiga ah ee gudaha dalkan Mareykanka jooga ee aan waxba soo kordhinayn dalalkooda dib loogu celin doono. waxa sidoo kale uu qeeldayay in ay jiraan dhaqaale fara badan oo shaqooyinka wadankan Mareykanka oo dadyooga soo galootiga ay qaataan, kuwaas oo uu sheegay in dadka muwaadiniinta Mareykanka ay haatan wixii ka dambeeya ayagu ay yihiin fursadahaasi kuwa heli doona. waxa uu sheegay in shaqooyinka tan iyo markii uu xafiiska la wareegay 100% ay dadka qaadanaya ama shaqada helaya fursadaha ah waqtigan ay yihiin dadka muwaadiniinta ah ee u dhashay dalkan Mareykanka. maxaana uu yiri taasi. For the first time in 50 years, we are now seeing reverse migration as migrants go back home, leaving more housing and more jobs for Americans. In the year before my election, all net creation of jobs was going to foreign migrants. Since I took office, 100% of all net job creation has gone to American-born citizens. 100%. sanad ka hor doorashadeeda shaqo abuurka saafiga ah ee qaliga ah waxa heli jiray oo qaadan jira ayuu yiri fursadahaasi shaqada diyooga soo galootiga ah. tan iyo markii aan xafiiska la wareegay 100% dhammaan shaqo abuurka aan sameynay waxa ay si toos ah ugu dhaceysay gacanta muwaadiniinta oo dadka helaya 100% shaqo abuurkaasi waa dadyooga u dhashay dalkan Mareykanka ayuu yiri. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dawladdiisu ay u adeegi doonto muwaadiniinta Mareykanka ee wax soo saar kale wadaniyiinta ah howlkarka ah amaba waxa uu sheegay in ay sharciga kuwa ku xadgudba ay ka qaban doonto. dadka haddaba naqdiya madaxweyne Donald Trump hadaladiisa ayaa ku doodaya in Mareykanku uu yahay dhulkii fursadaha isla markaasina halkan ay yimaadeen cid walba oo joogta haatan haba noqdaan sida ay yiraahdeen waalidiinta madaxweyne Donald Trump iyo xaaskiisaba. waxaa sidoo kaleeto arrinka sida weyn loo hadalhaya ee tahay dhinaca kaleeto in gobolka Minnesota oo waqtigan howlgallada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ee halkaas uu geeyay ay yihiin dadka ugu badan ee Soomaalida ee halkaas ku dhaqan dadyo muwaadiniin ah isla markaasina qaar badan oo kamid ilmahooda ay halkaas ku dhasheen. dadka intooda yar ee soo harta ayaa haysta sharciga deganaansho ee wadankan Mareykanka. tirada dadyoga soo galootiga ee wali aan la siin sharciyada dalkan Mareykanka ayaa aad u yar marka loo fiiriyo ayaa la leeyahay Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. haddaba daawadayaal khudbadaasi madaxweyne Donald Trump oo aan intaasi ku soo koobay hase yeeshee wax badan uga hadlay dhaqaalaha wadankan Mareykanka iyo waxyaabihii dawladdiisu ay ka qabatay ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya. la socdo barnaamijyada warbixinada wareysiyada iyo dhammaanba arrimaha ka baxaya Facebook-geena iyo YouTube-keenaba. inta ka horeysa nabadgelyo.